waddankan waxa uu ka mid yahay waddamada markaa farakutiriska ee dunidan ku yaalla gebi ahaanban wax dastuura aanan lahayn halkan kama jiraan nidaam baarlamaani ah iyo xukun dowlad qaybsi ku salaysan intaba keliya nidaamka waddankaniti lagu maamulo waa qaab boqortooye ah in nidaamka halkaniti markaa ka jira qoys qura markaasiti dhaxaltooye markaa maamulka ay kula wareegaan waddankan wuxuu ka mid yahay waddamada islaamka kuwooda ugu facaweyn taariikhna fog leh isagoona ah sidoo kale dal aad u muhiim ah maadaama ay ku yaallaan magaalooyin barakaysan waxaana waddankan jihaad halka markaasiti u xigo salaad waliba u soo jeestay in salaadoodii ku ogaan malaayiin muslimiina daafaha caalamkana ku kala dhaqan waxaana sidoo kale sanad waliba halkaniti soo qaabila acmaashooda xajka inay ku gutaan malaayiin muslimiina daafaha caalamkana kaga yimaada waddankaniti sacuudiga muuqaalkan waxaa markaa ku eegi doonaa qoyska reer al sacuud sida talada waddankaniti markaa qaab boqortooyada ay kula wareegaan sida markaa ugu suurtagashay wakhtigaasiti laga soo bilaabo 1932 gebi ahaanba talada waddankaniti boqortooye inay ku maamulaan ilaa haatan balse intaan guda gelin muuqaalka markale waxaa ku xusuusinaa in muuqaalka alla garayso siina sheergarayso haddii aad ka mid yahin bahaweynta nagu xirna inaad nagu soo biirto waad kumaa sidaa khudta ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aanu gudagalna muuqaalkeenna maanta nidaamka boqortooyada ee waddankaniti sacuudiga hoggaanka u haaya waxaa curashadiisa markaa soo bilaabatay qarniyo ka hor waxaana markaa curashadaniti ka soo bilaabatay tuulo markaa lagu magacaabaya aldiraaciya waxaana jirta dadka markaa tuuladaasiti ku noolaay in hoggaan xilligaasiti markay u doorteen nin lagu magacaabaye sacuud binu maxamed xilligaa taariikhdu markaa waxay ku aadinayd 1720kii waxaana magaca ninkaniti sacuud binu maxamed markaasiti uu noqon doonaa nin markaasiti qoyskiisa iyo markaa talooyinka wax markaa kaga sii dambeeyey in markaas saamayn markaa ay sii yeeshaan ilaa ugu dambayn heer markaasiti ay soo gaarsiiyaan magacaaniti in markaa xitaa saamayn badan markaasiti uu ku yeesho waddankana markaa loogu magacdaro sacuud farcanka siyaasadda ee nidaamkaniti boqortooynimada ee reer al sacuud in siyaasadda galaangal ay ku yeeshaan waddankaniti sacuudiga oo mid markaasiti soo bilaawday wakhti hore waxaa jiray taariikhdu markay maraysay 1727 in qaab boqortooynimo ah nidaamka markaa uu kaga dhaxlay talada aabihiis isagoo markaa kala wareegay nin markaa lagu magacaabay maxamed bin sacuud ninkan waxaa markaa dadaal badan markaa uu ku bixiyey boqortooyada reer al sacuud in sacuudiga dhul badan oo markaasiti ka mida uu gaarsiiyo waxaana jiray isagoo markaa garab ka helaya xilligaasiti ninkaa lagu magacaaba maxamed bin sacuud nin kaloo markaa lagu magacaabay maxamed bin cabdiwahaab in labadooda markaasiti iska kaashadeen garabna markaasiti iska siiyeen boqortooyadaniti reer al sacuud in dadaal walba marka ay ku bixiyaan dhul badan oo markaa ka mid a waddankaniti sacuudiga inay gaarsiiyaan xilliga maadaama boqortooyadii cusmaaniyiinta ay maamulayeen dhulal badan oo dhaca waddamada islaamka ah waxaa dhacday in dagaallo markaa iskala hor yimaadaan qoyska marka al sacuud iyo boqortooyada markaa cusmaaniyiinta dagaalka u dhexeeya qoyska al sacuud iyo boqortooyada cusmaaniyiinta waxaa markaa u socday muddo ayadoona markaa ugu dambayn markaa ay suurto gashay in awood markaasiti ay markaa ku gacan sarreeyaan boqortooyadii cusmaaniyiinta maadaama laga awood batay qoyska marka al sacuud waxaa markaasiti ay markaa dhacday in waanwaan labada markaasiti dhinac ay wada galaan waxaana taariikhdu markay maraysay 1816 heshiis markaa wada galay boqortooyadii cusmaaniyiinta iyo qoyskaniti al sacuud waxaa markaasiti ay ku wada heshiiyeen in talada markaasiti inta ugu badan marka ay hoos tagto boqortooyadii cusmaaniyiinta dhulkan sacuudigana markaasiti awood ay ku sii haystaan cusmaaniyiintu si markaa damaca qoyskaniti reer al sacuud ee boqortooynimada marka ay doonayeen inay ku hogaamiyaan waddankaniti sacuudiga gebi ahaanba meesha ay kaga tirtiraan cusmaaniyiintu waxaa marka ay ku dhaqaaqeen in qoyskaniti reer al sacuud marka ay ka dhigaan kuwo marka ay xiraan iyo kuwo ay laayaan intaba maadaama laga adkaaday qoyska reer al sacuud kuwa markaasiti ka badbaaday boqortooyadii cusmaaniyiinta hamigoodii weli markaa kama aysan quusanin in boqortooye dib markaasiti ooga yagleelaan dalkan sacuudiga hoos tagtana qoyskaasiti reer al sacuud waxaana markaa dhacday qoyska reer al sacuud kuwa markaa ka badbaaday boqortooyadii cusmaaniyiinta in saldhig markaasiti ka dhigtaan magaaladaniti riyaad dibna markaasiti u aasaasaan boqortooye hoos tagta qoyskaasiti reer al sacuud 1824 waxaa magaaladaasiti riyaad saldhigtay boqortooye ku abtirsanaysay qoyskaasiti reer al sacuud waxaa nidaamkaasiti boqortooynimada ee magaaladaasiti riyaad ka jirta hogaaminaya xilligaas nin lagu magacaabo turki binu maxamed ninkan inta talada boqortooyada ee magaaladaasiti riyaad uu hayay waxaa markaa dhacday in dhowr mar walaalihiis markaa iskhilaafaan waxaana khilaafka walaalahaniti salka marka uu ku hayay qaabka boqortooyada ee talada markaasiti loo kala dhaxlaayo waxaa khilaafka walaalahaniti markaa ka faa'iidaystay maamulna markaa ka dhinac samaystay xilligaasiti nin lagu magacaabay maxamed binu raashid waxaana ninkaasiti maxamed binu raashid u suurta gashay in markaasiti uu talada markaa boqortooynimada ee magaaladaniti riyaad ee qoyska reer al sacuud ay haysteen in gebi ahaanba marka uu ka faramaroojiyo reer al sacuud weli kama aysan quusan in dib markaasiti ay u hantiyaan talada boqortooyada ee markaa lagala wareegay waxaa nidaam uu hogaaminaya nin xilligaasiti lagu magacaabay cabdicasiis al sacuud uu dagaal markaasiti dib ugu soo qaaday magaaladaniti riyaad maadaama boqortooyada markaasiti xilligaas laga qaaday ee markaas saldhig u ahayd magaaladaniti riyaad
waxa ujeedka ugu weyn marka uu ahaa in qaabka boqortooyada nidaamkooda marka reer al sacuud dib marka u soo celiyaan sacuudigana marka city gibi ahaan bay wada hantiyaan waxa dhacday boqortooyada reer al sacuud in dib marka city oo la wareegaan magaalada Riyadh taladana marka city ka soo cishtaan ninkii hore marka oo kaga qaatay laguna magacaabay Maxamed bin Rashid sidoo kale marka qoyskan reer al sacuud waxa marka city taladooda ay hogaamin marka ku sii bilaabeen in marka boqortooyin kale marka ka jira waddanka sacuudigana in nidaamkooda marka city hoos keenaan waqti dadaalo marka city ku bixiyeen reer al sacuud waxa marka ugu dambeyn marka suurta gashay in boqortooyadooda marka city talada maamulka waddanka sacuudiga in gibi ahaanba marka city wada hantiyaan ayagana marka city hoos timaado qaab boqortooyana ilaa maanta waddanka city sacuudiga ay ku hogaamiyaan